Sidii aan ku aragnay qaybtii hore World of Immortals, Amir Jiyo oo hal gacan laga jaray wax u yimid taliyihiisii, kaasoo siiyey warqadda sirta ee jinniga qarsoon. Warqaddan ayaa u saamaxday inuu isticmaalo awooddeeda si uu dib ugu soo saaro gacantiisii go'nayd. Dhanka kale, Shao Kahn wuxuu isticmaalay ruuxda nolosha, isagoo saddexdiisa saaxiib ee qalfoofka ahaa dib ugu soo nooleeyay si ay ugu diyaargaroobaan dagaalada soo socda. Waxaa sidoo kale la tusay jinka seefta, kaasoo weerarkiisa uu Shao Kahn ka badbaadiyey wadaad Yi Jian. Si kastaba ha ahaatee, walaalkii weynaa ee Yi Jian ayaa naftiisa ku waayay, waxaana Yi Jian uu u sameeyey aas sharaf leh. Intaa waxaa dheer, Shao Kahn wuxuu si rasmi ah ula loolamay dhammaan isbahaysiga sare maadaama uu ka daalay dagaalada iyo weerarada joogtada ah. Markaas waxaana la tusay dooxadii uu ka dhici lahaa dagaalkii ugu weynaa. Qaybtan dagaalka si buuxda looma bilaabi doono, balse waxa bilaabanaya hordhaciisa, waana dagaal aad u halis badan. Dhammaan xubnaha isbahaysiga sare ayaa yimid dooxada si ay u wajahaan Shao Kahn. Waxaa sidoo kale goobta yimid xubnaha isbahaysiga Argosiga, kaasoo sameeyey Amir Jiyo isagoo doonaya inuu ka arguto Shao Kahn. Labada isbahaysi waxaa ku sugnaa dagaalyahanno aad u awood badan. Markaas hogaamiye ka tirsan qabiilada ayaa yidhi, dhammaanteen waxaan halkan u nimid challenge oo Shao Kahn noo soo diray, laakiin maxaa keenay in xubnaha isbahaysiga Argosiguna ay sidoo kale halkan yimaadaan? Hogaamiye kale ayaa sharxay. Hogaamiyaha isbahaysigaas waa Amir Jiyo, isaga Shao Kahn hore ayay isugu dhaceen, sidaa darteed wuxuu ururiyey xoog kala duwan si uu u sameeyo isbahaysiga Argosiga, wuxuuna doonayaa inuu la dagaalamo Shao Kahn oo uu dilo. Inkastoo arrintu hadal ahaan sahlan tahay, haddana ma noqon doonto wax si fudud ku dhammaada. Qaar ka mid ah xubnaha isbahaysiga sare ayaa isweydiiyey, ma maqasheen wararka sheegaya in xeer cusub lagu soo kordhiyey isbahaysiga sare, kuwaas oo qof walba laga doonaya inuu raaco? Xeerarka cusub waxaa ka mid ahaa, qof ka tirsan isbahaysiga ma dili karo xubin kale sabab la'aan. Haddii arrin gaar ah ama colaad shakhsiyeed jirto, cid saddexaad ma faragelin karto. Markaas ayaa waxaa soo muuqday Zhao Linar iyo Jin Jian iyo hogaamiyaasha kale isbahaysiga sare. Zhao Linar ayaa ku tidhi dhammaan dadkii, waxaan idinku yeernay halkan si aan u daawano dagaal aad u khatar badan oo maanta ka dhici doona halkan. Jin Jian waxay sidoo kale sheegtay in Amir Jiyo uu si gaar ah u yimid si uu u dilo Shao Kahn, maadaama uu bartilmaameed ka dhigtay oo doonayo inuu ka arguto. Waxay intaas ku dartay, inta badan dadka halkan jooga waa cadowgii hore ama kuwa cusub ee Shao Kahn. Miyaanay ahayn wax xiiso leh in la daawado dagaalkan amiiraddeena? Laakiin Zhao Linar ujeedadeedu dagaalka ma ahayn, waxay xiisaynaysay ugaarsiga xayawaanka iyo weliba helitaanka boqorka daraagoonka. Waxay ku tiri, wax ugu muhiimsan waa inaan xusuusano sababtaan halkan u nimid. Jin Jian ayaa ugu jawaabtay, hawlwelin amiiraddeena. Waxaan arrinta kala tashaday qaar ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ee jasiiraddan jooga. Dadka raadinaya boqorka daraagoonka way sii badanayaan, taasina waxay ka dhigan tahay in awooddiisa ay aad u sii korortay. Markaas ayay Zhao Linar tiri, haddii ay sidaas tahay, waa war wanaagsan inuu boqorka daraagoonku sii xoogaysto, anaga ayay noo sii fiican tahay. Jin Jian ayaa markaas weydiisay, sidee kula tahay ee ugu dambeyn ka badbaadi doona dagaalkan? Dagaalka dhex mari doona Shao Kahn iyo Amir Jiyo waxaa loo arkaa mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee taxanahan ilaa iyo hadda. Kadib muuqaalka ayaa u wareegay dhinaca isbahaysiga Argosiga. Waxaa halkaas joogay dagaalyahan la yidhaahdo Carter oo ka tirsan dagaalyahanada ruuxyada degdega ah. Mid ka mid ah raggiisa ayaa u yimid isagoo leh, waxaa halkan yimid dagaalyahan bini'aadam ah oo dhibaato badan wada, waxaana laga yaabaa inuu yahay cadowgeena Shao Kahn. Isla waqtigaas, nin kale ayaa soo galay oo sheegay in Yaro oo ka tirsan qabiilka Kaymaha iyo Kayo oo ka tirsan qabiilka Berberiyiinta, labadoodaba uu Shao Kahn keligiis kaga adkaaday dagaal hore. Markuu taas maqlay, Carter oo ka tirsan dagaalyahanada harka degdega ah ayaa si kibir leh u yidhi, maxaad carruurtaas igu soo hadal qaadaysaa? Ma waxaad u malaynaysaa inaan la mid ahay Yaro ama Kayo? Haddii Shao Kahn uu arko inaan la mid ahay iyaga, taasi waxay noqon doontaa qaladkii ugu weynaa ee noloshiisa. Anigu ma ihi ey adiga oo kale ah. Ninkii kale ayaa hadalkaas ka xanaaqay, wuxuuna yidhi, Carter, waa inaadan xadgudbin oo aad isilaabin. Laakiin isla markaas Carter wuxuu arkay qof ka soo dhex socda boorka meesha ka socda. Qofkaas wuxuu ahaa Shao Kahn. Markii uu yimid, qaar ka mid ah dadkii meesha joogay ayaa bilaabay inay is yiraahdaan, Amir Jiyo wuxuu kordhiyey fursadaha guushiisa isagoo la midoobay xubnaha ururka tuurayda duusha iyo ururka ruuxyada degdega ah si ay uga hortagaan Shao Kahn. Waxa kale oo la yaab ahaa in Shao Kahn uu keligiis yimid goobta dagaalka weyn. Shao Kahn ayaa naftiisa ku yidhi, waa inaan aad u taxadaraa. Xilligaas, qaar ka mid ah dagaalyahanada ururka tuurayda duusha ayaa weerar ku qaaday, laakiin Shao Kahn hore ayuu ugu diyaargaroobay. Wuxuu markiiba sameeyey gaashaankiisa ruuxiga ah, waxaana dhex maray isagii cadowgiisa isku dhac awood oo aad u xoog badan. Dabcan, awoodda Shao Kahn ayaa ka xoog badnayd, wuxuuna si degdeg ah dib ugu riixay cadowgii.
laakiin isla markiiba ninkii ayaa sii daayay awooddiisa ruuxiga ah, wuxuuna bilaabay inuu jiido dhismo weyn isagoo damacsanaa inuu kusoo dumiyo Xiaojan. Muuqaalkaas wuxuu ahaa mid aad u cajiib badan. Dagaalkan wuxuu bilaabay inuu sii kululaado, laakiin dhismo weyn oo lagu soo tuuray Xiaojan waxba ma yeelin. Wuxuu si toos ah u burburiyey dhismahaas, kadibna wuxuu dhaqaaqay dhankii sixroolihii weerarka soo qaaday. Markuu Xiaojan damcay inuu dilo ninkaas, waxaa hortiisa ka soo baxay Carter, wuxuuna ku yidhi, waa inaan qiraa Xiaojan, waxaad leedahay niyad adag oo aad u xoog badan. Isla markiiba Carter wuxuu bilaabay inuu adeegsado awoodaha harka mugdiga ah, waxaana ku soo biiray dagaalyahano kale oo ka tirsan ururka ruuxyada harka. Waxay ku wareejiyeen Xiaojan gidaar ruuxi ah oo weliba aad u xoog badan, kaasoon si fudud loo jebin karin. Markii xubnaha ururka ruuxyada harka ay awooddooda adeegsadeen, jirka Xiaojan wuxuu bilaabay inuu dareemo saameyn xun. Araggiisii wuu isbedelay, wuxuuna bilaabay inuu arko waxyaabo dhalanteed ah. Laakiin Xiaojan wuxuu ogaa in waxaasoo dhan ay yihiin khiyaano ay cadowgiisu ku doonayaan inay ku jahwareeriyaan isaga. Markaas ayuu yidhi, waxaan filayaa inaad ka tirsan tahay kooxda uu wadaad Yijan ii sheegay. Kooxdiina waxay ku fiican yihiin ismuujinta oo keliya, awood dhab ah sama lihidin. Sababtoo ah dhalanteedkaas wuxuu ku xidhnaa aragga. Xiaojan wuxuu indhaha ku xiray maro, maadaama uusan wax arkaynin. Awooddii cadowga wax saameyn ah kuma yeelan karin. Carter ayaa ku qayliyey, wiilyahow, khaladkan aad samaysay ayaa ku horseedi doona geeri. Isagoo hadalkaas leh ayuu si degdeg ah ugu booday Xiaojan si uu u weeraro, laakiin xitaa isagoo indhihiisa daboolan, dareenka iyo falcelinta Xiaojan aad bay u dheeraayeen, wuxuuna si fudud uga baxsanayay dhammaan weeraradii Carter. Markii Carter arkay in weeraradiisii caadiga ahaa shaqayn waayeen, wuxuu bilaabay weeraro aad u dheereeya oo isdaba joog ah. Xiaojan isaguna wuxuu weeraradaas kaga hortagayay fargalladiisa ruuxiga ah. Ma aha oo keliya inuu si fudud u joojiyey weerarada Carter, balse wuxuu qabtay wejigiisa, wuxuuna bilaabay inuu si naxariis darro ah u garaaco. Xitaa Carter fajac iyo naxdin ayaa ku dhacday. Carter si xun ayaa loo garaacay, markaas ay ogaaday inuusan waxba ahayn marka la barbar dhigo Xiaojan. Xiaojan wuxuu adeegsaday fargalladiisa ruuxiga ah, isagoo Carter si daran u dhaawacay. Markay arkeen inuu Carter dili karo, raggii kale ayaa weerar ku qaaday Xiaojan si ay u badbaadiyaan Carter. Mid ka mid ah cadowga ayaa watay awood seefeed aad u khatar badan, balse weeraradiisu Xiaojan waxay la ekaayeen ciyaar carruureed. Xiaojan ayaa seefihii oo dhan dib ugu celiyey kuwii soo diray, kuwaas oo ka caawinayay samaynta qaabkii xanibaadda. Hal mar ayaa dad badan lagu dilay weerarkaas, waxaana meesha ka baxay derbigii ruuxiga ahaa ee hareeraha lagu xiray. Markuu arkay arrintaas, nin ka tirsan ururka tuurayda duusha ayaa la yaabay. Xiaojan ayaa ku yidhi, waan ogahay inaad hadda isku dayi doonto inaad baxsato si aad naftaada u badbaadiso, laakiin hadda waa goor dambe. Kadib wuxuu adeegsaday fargalladiisa ruuxiga ahaa ee xoogga badan, wuxuuna si toos ah u dilay ninkaas. Dhammaan xubnihii isbahaysiga sare ayaa aad ula yaabay awoodda Xiaojan. Kaayo ayaa si kibir leh u yidhi, idinku waxba ma tihiin, intaasoo qof ayaad isugu timaadeen, haddana xitaa ma awoodaan inaad ninka keligiisa ah muddo yar hakisaan. Yaro ayaa ku jawaabay, Kaayo ha welwelin, weli waxaa jooga Amir Jiyu ama Amir Gulu, kaas oo ilaa hadda aan xitaa dhaqaaqin. Huwaal wuxuu samayn doonaa wax weyn. Xubin kale oo ka tirsan urur kale ayaa yidhi, waxay muuqataa in Xiaojan uu kasii xoog badnaaday sidii uu markii hore ahaa. Runtii astaamahaasi si cad ay u muuqdeen. Maadaama Xiaojan uu hore u socday, waxaan hortiisa taagnaa Amir Gulu oo hal gacan leh. Xiaojan ayaa ku yidhi, sidaan kuu ballan qaaday waan imid. Waxaan sidoo kale leeyahay dagaalkani ma dhammaan doono ilaa midkeen dhinto. Adigu ma joogsan doontid, aniguna ma joogsan doono. Markuu taas maqlay, Amir Gulu aad ayuu u sii xanaaqay. Markii dagaalku sii socday, qof walba wuxuu arkay in gacantii Amir Jiyu laga jaray ay si xun u dhiig baxaysay. Isagoo aad xanaaqsan ayuu ku qayliyey, Xiaojan maanta aniga qudhayda ayaan gacmahayga kugu dili doonaa. Meeshii gacantiisa ka go'aneed waxaa ka soo baxay 3 mas oo madow, kuwaas oo aad u falxun oo kuwa cabsi leh u ekaa. Markay arkeen arrintaas, Kaayo ayaa yidhi, Amir Jiyu muxuu gacantiisa sidan ugu bedelay? Yaro ayaa isaguna yidhi, arrintan runtii waa wax aad u falxun oo laga yaqiiqsoodo. Mid ka mid ah dadka meesha joogay ayaa sheegay, tani waa farsamada mamnuuca ah ee ururkan dhiman. Farsamadan ayaa awood u leh inay gacanta qofka u beddesho mas, isla markaana muddo gaaban si weyn u kordhiso awooddiisa. Laakiin dhaawaca ay jirka u geysato si fudud looma bogsiin karo. Dagaalkii ayaa markaas si rasmi ah u bilowday. Amir Jiyu ayaa weerar xoog leh ku dhuftay Xiaojan, waxaana hal jug oo keliya oo ku dhacday Xiaojan ay sababtay inuu ku dhaco tiir weyn. Xitaa tiirkii ayaa jabay. Dadkii daawanayay ma aysan rumaysan karin waxay indhahooda ku arkeen. Qof walba wuxuu la yaabay sida Amir Jiyu naftiisa khatar ugu geliyey si uu cadowgiisa u dilo. Markaas Amir Jiyu ayaa ku yidhi Xiaojan, ma dareemaysaa urta dhimashada? Haa, waxay ka soo baxaysaa jirkayga, laakiin adiga ayay kuu soo socotaa. Ha welwelin, sababtoo ah si fudud kuuma dili doono. Xiaojan ayaa ka soo baxay burburkii dhagxaanta,
isagoo dhiigga afkiisa ka tirtiraya, wuxuuna yidhi, tani waa bilowgii oo keliya, miyaad runtii u malaynaysaa inaad si fudud ii garaaci karto? Amiir Gulu ama Jiyu ayaa yidhi, wiilkaygii, wakhtiga aan sheegi doono qofka dagaalkan ka badbaadi doona iyo qofka dhiman doono. Isagoo qoslaya ayuu markiiba 3 mas ee gacantiisa ka soo baxay ku amray inay weeraraan Xiaoyan. Masaskaas ay si aad u khatar badan u weerarayay, cabirkoodana marba marka ka dambeysa sii weynaanayay, taasoo dagaalka ka dhigtay mid aad u cajiib badan. Xiaoyan isagoo dagaalamaya ayuu is yidhi, masaskan jinka ahi dhibaato weyn ay ii keenayaan. Haddii sidan lagu sii socdo, marnaba ma gaari karo Gulu. Waa inaan fursad helo aan weeraro gacantiisa kale saan u dhaawaco. Laakiin 3 mas fursad uma siinaynin. Xitaa hal mar ay afkooda ku qabteen Xiaoyan, laakiin si dhib badan ayuu uga baxsaday. Markuu mar kale isku dayay inuu u dhawaado Gulu, 3 mas ay si degdeg ah ugu soo booday si ay u dilaan. Si uga hortago, Xiaoyan wuxuu hortooda dhigay fargaladiisa ruuxiga ah. Markii Gulu arkay arrintaas, wuxuu sii galay waali, wuxuuna ku qayliyay, dhimo, degdeg u dhimo. Xiaoyan markuu arkay xaaladiisa ayuu is yidhi, ninkan runtii waali ayuu ku sugan yahay. Kadib wuxuu wax yar kordhiyay awooddiisa, wuxuuna 3 mas dib ugu tuuray si aad u xooggan. Taas waxay siisay fursad uu ugu dhawaado Amiir Gulu. Markuu gaaray, Xiaoyan wuxuu ku dhuftay xabadka Amiir Gulu weerarkiisii ugu xoogga badnaa, taasoo si xun u dhaawacday oo xaaladiisa ka dhigtay mid halis ah. Sida uu dagaalku ku dhammaan doono, qaybta xigta ayaa lagu arki doonaa. Halkan ay ku dhammaanaysaa qaybta 23aad. Asxaabta sharafta badan, like una saara muuqaalka. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsantihiin daawashadiina.